maxay tahay ciqaabta ama farsamada ugu waxtarka badan ee lagu tarbiyeeyo ilmaha? Mararka qaar waalidka ama qofka mas'uulka ka ah ilmaha wuxuu isweydiiyaa su'aashan: maxay tahay ciqaabta ama farsamada ugu waxtarka badan ee lagu tarbiyeeyo ilmaha? Runtii su'aashan waa su'aal muhiim ah, waxayna u baahan tahay in si cilmi ah loo fahmo, sababtoo ah ujeedada inta badan ilmaha ma aha marka la tarbiyeynayo in la xanuujiyo, ma aha in la cabsi geliyana, ma aha ujeedada loo tarbiyeynayo. Ujeedada loo tarbiyeynayo ilmaha waa in la baro in ilmuhu uu fahmo qaladkiisa si aadaab leh weliba. Maanta marka waxaan ka hadli doonaa habka loo yaqaano time out. Time out waa hab la tijaabiyey, waana mid ka mid ah farsamooyinka ugu waxtarka badan ee lagu tarbiyeeyo ilmaha. Haddii aad rabto ilmahaagu inuu noqdo ilmo wanaagsan, caafimaad ahaan, maskax ahaan, caqli ahaan, tarbiya ahaan, diin ahaan, meel walba ilma ku fiican haddii aad rabto inuu noqdo, waa inaad farsamadan isticmaashaa time out. Time out waa inaad isticmaashaa. Marka hore marka aan fahanno waxa la yiraahdo time out. Time out wax kale maaha, waa farsamo ilmaha lagu xakameeyo falcelintiisa iyo dabeecadiisa. Maxay tahay marka farsamadan? Marka ilmuhu sameeyo wax aan habboonayn oo qalad ah, tusaale inuu ilmaha caay, inuu aad ku aragto kala soo ilmo caaynayo kale, ama isagoo wax aadan adi markaas jeclaysan tarbiya ahaan ama anshax ahaan ama diin ahaan, ilmaha aanan akhlaaqdooda u fiicnayn ayaad ku aragto cunugii inuu sameynayo. Marka halkii aad ciqaabi lahayd oo aad garaaci lahayd oo aad ku oysiin lahayd waalidka, waxaa fiican in ilmaha ku sameeyo waxa la yiraahdo time out. Xeeladan waa inaad isticmaasho. Marka xeeladan maxay tahay? marka cunuga waxaad sameynaysaa, caruurta ayuu ku dhex jiraa, tusaale qalad ayuu sameeyey, waxaad leedahay xagga fariiso, meel gees ah ayaad fariisinaysaa. Time out marka waxaa waa inaad ilmaha cunuga ka dhex bixiso markuu qalad galo, inaad ka dhex bixiso meeshaas aad ku haysa cabaar. Marka daqiiqadaha lagu hay doono iyo si time outku ilmuhu tarbiyadooda u fiicnaado waan soo wadnaa insha Allah, laakiin inaad ka fogeyso ilmihii oo aad xagga geyso. Kadib marka maxaa dhacaya marka cunuga markaad tani waxay keenaysaa marka ilmaha in uu waqti uu ku dejiyo maskaxdiisa. Cunuga fikru bilaaba wuxuu leeyahay ilmahan maxaa lagaaga dhex saaray, gees maxaa lagu fariisiyey, su'aal buu isweydiinaya. qaladkii uu galana waa uu ogaanayaa sababta ilmaha looga bixiyey, sababtoo ah markuu qaladka galay iyo markaad ilmaha ka dhex bixisay ayaa isku mid noqday. Marka time out horta waa noocaas. Cilmi baaris marka ayaa inta badan muujinaysa in time out uu yahay hababka ugu guusha badan ee lagu tarbiyeeyo ilmaha. Marka ilmaha laga joojiyo helitaanka dareenka waalidka ama dadka kale, wuxuu bartaa in uu qalad sameeyey. Tusaale cunuga markaad dhahdo meesha fariiso, wuxuu fahmayaa cunugani in uu qalad sameeyey, in uu sameeyey wax ka duwan oo ilmahan looga dhex saaray inay jiraan. taas bedelkeeda marka cunugu haddii uu wanaag sameeyo sidoo kale ilmaha kusoo dhex dar, ilmaha la baashaalo, caruurta la baashaalo, ixtiraam umuuji, jacayl umuuji. laakiin hadduu qalad galo time out, hadduu sax sameeyana bulshadiisa inaad kusoo dhex darto. marka ma aha cunuga inaad faquuqayso, ma aha faquuqa micnuu samayn doonaa marka time outku waqtiga loogu talagalay aad dhaafsiiso ilmahaasi, faquuq ayaa ku samaynaysaa. marka waqtiga ayaan soo wadnaa isagana insha Allah. waalidka ama macalinka waa inuu si cad ugu qeexaa ilmaha sababta time out oo ugu sameynayo. tusaale cunuga halka aad ka dhihi lahayd nacas baa tahay, cunug xun baa tahay, saasaa tahay, intaad dhihi lahayd waxaa fiican waxaa leedahay cunuga walaalka ayaad caasisay, xagga fariiso. wixii aan kuu diray ayaa samey weysay, xagga fariiso. cashirkii aan kuu diray ayaad diyaarin weysay, xagga fariiso. macnaha waa inaad sheegto, ilmaha u sheegto sababta aad time out u gelinayso, sababta inaad u sheegto. sidoo kale cunuga tusaale way dhacday aniga caruur badan oo ku tijaabiya jirta. cunuga marka tusaale cunug kale wuxuu ku yiri wacel, tusaale ahaan wacel. cunuga time out u sameynaya kaala waxa leedahay xagga tag. marka uu fariisto oo daqiiqadii loogu talagalay time out oo ka soo baxo kaala leedahay. marka waxa leedahay wacel maxaa la dhahaa. inta badan caruurtu wacel waxa la dhahaa ma yaqaanaan. marka waa fahansiinaysa waxa leedahay wacel waxa la yiraahdaa saas ma fahanto. mar dambe aan ka maqlin caruurta dhaxgal. marka cunugaas jaa wuxuu fahmay ereygii wixii laga wado, time outna waa gelisay. marka halkii aad ka dhihi lahayd ilmo xunaa tahay oo garaaci lahayd, waxaa fiican time outkaas inaad samayso. muddada marka time outka waxaa la rabaa inaysan ka badan 1 ilaa 2 daqiiqo, inaysan ka badan ayaa la rabaa muddada time outka. sababtoo ah 1 ilaa 2 daqiiqo hadday ka badato waxay noqonaysaa faquuq, ay noqonaysaa in cunugii aad si gooni u faquuqayso. haddii ilmuhu marka uu yar yahay, laakiin haddii ilmuhu tusaale uu weyn yahay oo caqligiisu tusaale 6 sano, 7 sano, 8 sano, meelaha 10 sano hadduu jiro, waxaa fiican 5 ilaa 10 daqiiqo time outka inaad uga dhigto.
haddii waqtigu bato marka oo time outka intii loogu talagalay 1 ilaa 2 daqiiqo ilmaha yaryar wixii 6 sano ka weyn 7 sano ka weynna 5 ilaa 10 daqiiqo time outka hadduu intaas ka bato wuxuu noqonayaa mid aan waxtar lahayn. marka waqtigu uu dhamaado marka waa muhiim in waalidka iyo macallinku ay ilmaha la hadlaan oo ay dhahaan sidaan iyo sidaan ma fiicna in sida loo tarbiyeeyo. ugu dambeyntii waa inaan xusuusano in time outku uusan ahayn ciqaab maaha. time outku waa fursad ilmaha wax lagu baro, waa waqti ilmuhu ku baranayo waxa qaladka ah iyo waxa sax ah. mar kasta oo aad farsamadan isticmaashana cunugaagu wuxuu noqonayaa cunug maskax ahaan degan, caqli ahaan sareeya, adab ahaan fiican, diin ahaan fiican. waxaan ilmaha ka caawinaysaa inuu noqdo cunug qaladkiisa fahma, mas-uul ah, isla markaana qaladkii uu horey u galay aanan ku laaban. haddii aad tahay marka waalid ama qof ilmo yar la tacaalaya, xusuuso in edbintu micnaheeda uusan ahayn cabsigelin maaha, garaacis maaha. edbintu waa inaad samayso time out. aad baad umahadsan tahay. waxaan rajaynayaa mawduucani faa'iido badan inuu kuu leeyahay. ilaaban inaad muuqaalka like saarto, subscribe saarto kanaalka haddii aad nagu cusub tahay. soo dhawaa mar kale.